Ma ogtahay inaad duubi karto cod faseexa adigoon isticmaalin wax mikrafoon ah kaliya isticmaalaya moobilkaaga. Muuqaalkeena maanta waxaa idinku tusi doonaa 4 qodob oo ah inaad isticmaasho si aad u duubto cod faseexa. Qodobka koowaad waa inaad ka fogaataa dhammaan wixii qaylo ah ama wixii buuq ah ee agagaarkaaga ah, sababtoo ah waxa aad wax ku duubayso waa moobil oo mikrafoon maaha oo qaylada kama reebayo. Marka hore waa inaad tagtaa meel cod faseex ah ama meel dadku aysan ka dhaweyn ama aysan qayli ka jirin si aad u duubto cod faseexa. qodobka labaad waa inaad codkaaga ka dhigtaa cod faseex ah si aad u isticmaasho maro ama wax aad geliso qaybta samiicadda ee moobilka, sababtoo ah hadallada markii aad hadlayso neef ayaa la socota, neeftaasina waxay samaynaysaa reflection ama qayliyar ama dhawaaq yar. Si aad uga hortagto dhawaaqaasi waa inaad maro ama wax gelisaa qaybta samiicadda ee moobilka. qodobka saddexaad waa inaad codkaaga ka dhigtaa cod deganaan ah ama cod degan. haddii aad codkaaga qaylida saayid ka dhigto ama aad codkaaga boobsiiso, ereyada aad ku hadlayso waa lagu wareerayaa. Codkaaga deji marka hore adigoo degan muuqaalka duub si dadku ay u fahmaan waxa aad ka hadlayso iyo ujeeddadaadu waxa ay tahay. qodobka afraad ahna qodobka ugu dambeeyo, si aad codkaaga cod faseexa ugu dhigto waa inaad adeegsataa application CapCut. CapCut waxay soo kordhisay update cusub kaasi oo kuu saamaxay inuu codkaaga ka dhigo cod faseexa. kaliya CapCut ayaad gudaha uga soo galaysaa, kabacdina waxaad raadinaysaa qayb ay ku qoran tahay enhance speech oo codkii aad duubtay ayaad ku dhufanaysaa. kabacdina waxaad raadinaysaa qayb ay ku qoran tahay enhance voice oo markii hore Grompt iyo meelo kale ayaa laga heli jiray, balse CapCut ayaa soo kordhisay. muuqaalkeena maanta ayuu ku egyahay. hada wasalaam, peace and love.